ugu dambeysay barnaamijkan u gudbaynaa shalay sidaad wararkaya kula socoteen wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa tagay magaalada Hargeysa halkaas waxay kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliland iyagoo markaana sidoo kale wadahadalladaasi ay ku wajahnaayeen kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu 26 bishii hore oo si rasmi ah u aqoonsaday Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo halkaas ka hadlay Cabdiraxmaan Cirro isagu wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay oo aqbalay casuumad uga timid ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ah inuu booqdo magaalada Tel Aviv inta marka laga tago dood adag ayaa waxay ka dhalatay wafdigan xagee bay ka yimaadeen dadka qaarkood waxay lahaayeen imaaraadka ka yimaadeen qaar waxay yiraahdeen may waxay ka yimaadeen toos Israa'iil siyaabo kala duwan baa looga hadlay ma diyaarad bay ku yimaadeen maxay ku yimaadeen baa la isweydiinayay dood adag baa ka dhalatay doodan waxay la xiriirtaa arrimaha hawada oo dood adag ay ka taagan muddooyin kala soo dhaafay haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa baaritaan sameeyay baaritaanka markuu wuxuu ku soo ogaaday macluumaadkii ugu dambeeyay wafdigaas qaabka ay ku tagaan meeshaas xalay ayuu marka warbixin qoray Al Jazeera waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa tagay Israa'iil isagoo raacay diyaaradda laga leeyahay waddanka Romania oo safarkaasi u adeegsaday sida warbixinta lagu sheegay diyaaradda ayaa ka dooshay magaalada Addis Ababa subaxnimadii shalay ee Talaadada balse mar alaali markii ay dooshay ayaa waxay qarisay halka ay ku socoto kadib markii hawada ay gashay macnaha lama ogaan karin ba diyaaradda meesha u socoto iyo macluumaadkaas oo idil Al Jazeera waxay leedahay imaashaha diyaaradda ayaa markii dambe waxa lagu xaqiijiyay kadib markii madaxtooyada Soomaaliland ay baahisay muuqaal muujinaya Saar oo ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa kooxda hubinta digitalka ee Al Jazeera ayaa waxay xaqiijisay in diyaaraddan ay leedahay shirkadda Romania ee lagu magacaabo Fly Lily waxaana ay diyaaraddan la sheegay in isniintii ay timid magaalada Addis Ababa iyadoo ka soo dooshay magaalada Tel Aviv booqashadan ayaa waxay timid markii Israa'iil ay aqoonsatay Soomaaliland tilaabo dowladda Soomaaliya ay aad u cabaareysay sida warbixintu ay sheegayso halkaas marka waxaa ka cadaatay in diyaaraddan isniintii ay ka timid Tel Aviv ay soo gaartay isla isniintii Addis Ababa shalay oo Talaadana subaxii hore ay ka soo dhooftay magaalada Addis Ababa isla markaasna markii ay soo kacday ay qarsatay meesha ku socoto macnaha raadaradii ay dansatay kadibna halkaas ay ku degtay magaalada Hargeysa marka halkaas waxaa ku dhamaaday warka la xiriira iyo doodii la xiriirtay wafdigan sidee ku yimaadeen macluumaadkan telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga ayaa qoray warbixintaasi soo baahiyay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka